cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa markale ku celiyey inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee loo doortay koonfur galbeed inkastoo hore xilka looga qaaday islamarkaana uu iscarsilay. laftagareen ayaa yidhi aniga waxaan ahay madaxweynaha sharciga ah ee koonfur galbeed ee loo doortay, deegaankiina waan tegi doonaa waana xoreyn doonaa. hadalkan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalku ay magacowday hoggaan ku meel gaara oo maamula koonfur galbeed, iyadoo sida oo kale la filayo in dhowaan la qabto doorashooyin lagu soo dooranayo hoggaan cusub. xiisad siyaasadeed iyo mid amni ayaa weli ka taagan magaalada baydhabo iyo deegaano kale oo hoos yimaada maamulka koonfur galbeed, iyadoo arrintan ay abuurtay jahawareer ku saabsan hoggaanka rasmiga ah. ilaa iyo hadda ma jiro faahfaahin rasmi ah oo laga bixiyey jadwalka doorashada, balse waxaa jira dadaallo lagu doonayo in xaaladda lagu xasiliyo.